iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay ka sii darayso xaaladda abaareed ee ka jirta degmada Garadag iyo gebi ahaanba deegaanada hoos yimaada ayaa tuulada Fadhiga waxay ka mid tahay deegaanada ay sida gaarka u saameysay abaartu. Haddaba mar uu ku galay xaaladda nololeed ee dadka iyo xoolaha Honkeygal TV ayaa indhahagu waxay qabanayeen muuqaal aad u naxdin badan caruur iyo waayeel ka cabanaya hoy la'aan iyo biyo iyo baad la'aan markii ay waayeen xoolaha ay ku tiirsanaayeen iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka reer guuraaga oo ka hagaagi waayay gaadiidkii ay raran jireen markii uu awoodi waayay kicista. haddaba dadweynaha ku nool deegaankaasi Fadhiga oo ay ka mid yihiin odayaal dhaqameed, cuqaal, dhalinyaro, haween iyo qaar ka mid ah dadka ku soo xirooday tuulada ay abaaruhu barakiciyeen ayaa waxa ay cod dheer ku sheegeen in cid kasta oo danaynaysa ay la soo gaadho caawimo degdega. waxayna sheegeen inay ku sugan yihiin duruuf aad u adag. dhanka kale waxa ay bayaamiyeen inaanay xukuumadda ka helin wax taakula isla mar ahaantana ay ku guda jiraan wada tashi iyo halkay salka dhigi lahaayeen. maanta baahida ka jirta iyo culayska jira waa xilli abaara weeye. meesha waxa weeye dadkii waa lagaga tegey, xoolihii wixii soconaya waa laga kaxaystay sidaa loo sheegay. maatadii iyo caruurtii iyo wixii waa laga tegey. reer walba waxaa la saaray 5 ilaa ugu yaraan 5 qoys oo dulfuula baa la saaray. 5 qoys waxa weeye culays weyn bay keeneen. dhowr cashana waxaa loo sameeyey in dadka wax looga guro wixii way istagooli waayeen. waxaanu codsanaynaa jamhuuriyadda Somaliland, hay'adaha samafalka, mas'uuliyiinta, xildhibaanada dhammaan waxaanu ka codsanaynaa dadka in gurmad loo fidiyo, degdega in loo soo fidiyo, lala soo gaadho. qoraxday joogaan baahi xoolihina 500 neefan wadada ku daaqno waanu ku bixinaa. waa meesha 700 neef laga daaqay tuulada qura laga bixiyay. waxa weeye wax dawladana waan caawimo badan oo hayno waa sugeynaa. hadday tahay miyi iyo magaalaba anagu magaalada iyada Fadhiga baa la yiraahdaa. waxa weeye meel xoolo ku nool bay ahayd. haddaan magaalada nahay iyo haddaan miyiga nahayba waxa dad ku nool xoolaha ku xidhan oo noloshooda xoolaha ku xidhan tahay baanu nahay. أنا هاني وين وضع ثابتة باهي وحدة أمان وضع واحد متى كلا عافماتك أي دتك قاعد تقول لي تا قال هلا لو غفت مرة معنا هاي وحنا هاي قيب عافماتك ومن كم إذا أوتشوك تتولى ده معنا تدكي وها هي حنون شو بنفق على آن تمركي ديك بح وحلا وحنا وير أنا كوع وصنوا أنا كوع بنا مشرو هذه ياد باهي حق عافماتك مركزي هربا نقول لي دتي waxaanu jirta cabadkeega loogu jira dhowr arrimood oo aanu ku cabanayno. mid waa taa aanu ka soo hadalnay xagga abaaraha oo waxa la waxna soo qaaday ma jiraan. hadday degmada tahay hadday gobol tahay anagoo reer Garadag degmada Garadag ku xiriirsan degmo gaarana aanu hadii la idinkeeyo u dhow waayo 200 qof baa naga soo baxay codeyntii. waxa kale oo jirta marka waxa weeye wax allaale wax qabati waxa la waxaanu ka hayna ma jirto. hoggaanka ciidanka booliiska oo noogu ballan qaaday waxba kama hayno. waxa kale oo jirta NGFs meel dhakhtar hub dhakhtar waa noogu ballan qaaday dhowr jeer waxba kama hayno. inamada yada ka soo baxay isdii waxay naga doogan waxba doogayadii waa tashanayna la dad baan nahay. ilaahay baa ka gacanta weyn baanu nahay. xooluhu dadkay ka dhamaadeen maalinkan maanta tuulada ku soo xirooday baanu nahay. tuulada haddaanu ku soo xiranay baahi iyo guryo la'aan iyo waxyaalaha haysta. waxaanu idinka codsanaynaa inay idin eedeero gudinayna soo caawiyaa degdegna loo soo caawiyaa nala Faraxa Cabdi Nuur Honkeygal TV Garadag.